qaar ka mid ah culimada gobolka Cayn ayaa deeq lacag oo dhan $3,000 waxay ku wareejiyeen gudoomiyaha gudida abaaraha Buuhoodle waxaana ugu horeyn lacagtani iyo meesha ka timid ka warbixiyay Dr. Cabdishaafi Axmed Cali oo ka mid ah culimada gobolka Cayn sidoo kalena ah gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhoodle ugu dambeyntiina waxa halkaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنتم حين شوقنا مقالة ييلة وطبنكي بشي أفراد لواكن يتضبية طبعا وحين شوقنا راشين عاومة ولوغو طلق لديك طبعا على السن أبارتو أي بيستي راشين كاس oo ay wadeen gudiga maxadeeq xaj xasan iyo ay kamid yihiin raashinkaas berbere ka soo guuray waxaan anagu culimo ahaan anagu ku hadlaynaa magaca culimada Buuhoodle waxaanu raashinka kaga qayb qaadanay bixinta nooliga berbere uu kaga soo guuray uu ku soo gaaray deegaanka lacagtaas nooliga ah raashinkaas uu ku soo kacay cid waliba ay soo nooliyeenaysay ka culimo ahaan waxaanu bixinaa $3,000 oo ah lacagtii raashinka lagu soo nooliyay lacagtaas waxaan ka bixinaynaa lacag abaaraha loogu talagalay aan haynay oo Buuhoodle leedahay $20,000 oo ka timi gurmadka dawladda federaalka ee Soomaaliya taas oo aanu qaybo badan ka qaybinay waxaanu wixii gudaha magaalada Buuhoodle ah ayaanu baaqi ka qaybinay 17,000 haray 3,000 waxaan ugu talagalnay raashinkaas oo u socda aan Buuhoodle gudihiisa galaynin laakiin tuulooyinka u socda inaanu nooli ahaan kaga qayb qaadano anoo qaybta nooliga kaliya bixino taasna ay isaa ku gaadho tuulooyinka aan gaadhin deeqda aan gacanta ku haynay 20,000 waxaan leenahay wixii la fudeediyaa fiican 20,000 banaankana uma bixi karto gudahana kama wada qaybsan karto 17,000 ee kala Buuhoodle gudihiisa aan ka qaybinay oo raashin ahaan uga qaybinay dadka tabaalaysan khaasatan labada riig dadka jooga iyo dadka barakacayaasha koonfurta ka soo qaxay ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle inta kalena nooliga ayaanu ugu talagalnay raashinkaas walaaluhu soo gudbiyeen keeneen khayr Allah ka siiyo ay ka soo shaqeeyeen annana inaanu intaa ku taageerno nooliga saasna ay ku gaadho tuulooyinka caawimadana in la kala qaybiyo oo way fiican tahay qolo walba wax la gaarsiiyo gudaha Buuhoodle iyo dibadiisa in loo kala qaybiyo wada shaqeynta noocaasina aad u fiican tahay waridinkuna banaanka siiya aan kala qayb qaadano annaguna aan gudaha siino aad iyo aad baa u mahadsantihiin oo soo dhaweynaa jazaakumullahu khayran sida fiican ee raashinka u yimi iyo sida loo qaybiyay iyo sida tuulo waliba ay gaarigeeda ula timi ee nabadgelyo ugu qaadatayna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa oo idinku wadaadinayna jazaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle maanta waa maanta kuleelka aynu ku jirnay dibkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala dibka iyo kuleelka ay abaarta inaga soo jabiyo maqsadka halkan u nimid wuxuu ahaa raashinkan ka qayb qaadashadiisa halkan yimid lagu talagalay deegaanka tuulooyinka Buuhoodle oo dhan in uu kaga yimid nooligiisu ila berbera soo noolinay kala noolinay anagu jeefkay kama bixinine lacagtii dadku lahaa ee federaalka uga timid qaybta ay ka heli lahaayeen inaan ugu qaybinay in nooliga loogu keeno raashinka maadaama wuxuu aad u yaraayeen inta weeye in la isla ogaado oo ugu dambeyntiina waxa lacagtaasi gudoomiyaha gudida abaaraha Maxamed Deeq Xaaji Xasan bismillaahirrahmaanirrahiim sida culimadu sheegtay waxaan joognaa yeyle raashinkii loogu talagalay deegaanka Buuhoodle ayaanu ku qaybinaynaa culimadu sida ay sheegeen way ka qayb qaateen waxayna kaga qayb qaateen inay nooligii ilaa berbera ilaa iyo meesha uu gaarayo inay qayb ka qaataan arintaasna waa arin aan anaguna waxa weeye aad uga mahad celinayno وانا عدنا ان العتاي هوش ay ka qayb qaateen wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi gudidna Cabdi Casiis aadan jaamacada telefishinka caalamiga SBC Buuhoodle